halkani waa laanta af soomaaliga ee b b c oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar facebooka iyo barta internetka ee ciwaankeennu yahay b b c somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin jimco ah 23 julaay saacadda afrikada barin ah waa 7 aroornimo oo gow ah. qodobada aad barnaamijka subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waxaa la isla gartay dhammaan cidda xidhka leh hantida u diraysa weliba gaaraan kuwa dagaalka ku jira ee hantidooda halkan uga shaqaynayso. ninka dagaalka ku jira ee dalka inuu burburiyo doonaya ee hantidiisina halkan taallo dee waa qasab waayo hantidan uu ku dagaalamaya rasaas buu siisanaya wax kasta uu ku dagaalgalo oo saanada ayaa looga diraya halkantiisa. salaadigana waxaan qabanay 20 xubnood baan qabanay. waa booliiska dowlad deegaanka soomaalida oo xirxiray rag la sheegay in ay gacan saar lahaayeen kooxda TPLF. madaxweynaha faransiiska oo telefoonkiisi gacanta bedelay kadib fadeexaddii Pegasus. gabar Soomaali ah oo soo bandhigtay madxaf hidaha iyo dhaqanka Soomaalida lagu kaydiyo oo qaab online ah lagu daalacan karo. waxaad kale oo aad maqli doontaan waxaan ka wada hadalnay waa sidii aan uga faa'iideysan lahayn aqoonta iyo khibradda guddigan uu leeyahay oo muddo badan ay soo qabanayeen soona maamulayeen doorashooyin annaguna hadda aan rabno doorashadii u horreysay oo qof iyo coda inaan puntland ka qabanno. waa guddiga doorashooyinka puntland oo kenya la kaashanaya tababarada iyo khibrad isweydaarsiga guddiyada iyo qodobo kale oo ciyaarihii ay ka mid yihiin. barnaamijka waxaa soo saaray ciise xaaji cabdille anigoo axmed mursal xuseen ayaa idinla socodsiin doona. marka horese waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka kuwooda ugu doorka roon. cabdishakuur cabdulaahi casoowe ayaa inoo warramaya. mahadsanid axmed. maraykanka ayaa shiinaha ku eedeeyey inuu diidan yahay baaritaan caalami ah oo lagu sameeyo sida uu asal ahaan ku yimid cudurka covid-19. aqalka cad ayaa sheegay in khatar iyo khayr-mas-uulnimo ay tahay tallaabada uu shiinaha ku hor istaagay howsha ay hay-adda caafimaadka adduunka ku doonaysay u kuurgelidda qaar ka mid ah shaybaaradiisa. shiinaha ayaa si xoog leh ugu gacan seeray arrinta ku saabsan in fayraska lagu sameeyey shaybaar ku yaalla magaalada wuhan. xukuumadda washington ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay wasiirka gaashaandhigga ee dalka kuuba iyo cutub ka tirsan ciidamada ammaanka ee waddankaas iyadoo sababtuna ay tahay awooddii lagu muquuniyey dibadbaxyadii dhacay horaantii bishan. madaxweyne baiden ayaa sheegay in tallaabadaas ay bilow u tahay la xisaabtanka dowladda kuuba ee la xiriira sida ay ugu xadgudubtay xuquuqda bani'aadanka. tartanka olombikada ee culeysyadii ugu badnaa wajahay taariikhda dhow ayaa si rasmi ah u furmi doona saacadaha soo socda gudahooda. ciyaarahan oo sanadkii lasoo dhaafay loo baajiyey cudurka safmarka ah awgiis ayaa ka dhacaya caasimadda dalka jabaan ee tokiyo oo ay hadda ka jirto xaalad deg deg ah xilli cudurka uu ku sii fidayo. talyaaniga ayaa ku biiray wadamada ku baaqay ama ku dhawaaqay in ay khasab ka dhigi doonaan shahaadada tallaalka fayraska korona. laga bilaabo bisha soo socota waxay dowladdu u oggolaan doontaa dadka qaatay ugu yaraan hal tallaal inay ka qayb galaan munaasabadaha ka dhacaya meelaha aan kor ka bannaanayn. madaxweynaha dalka ekwador ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo lagu soo rogay hannaanka xabsiyada waddankaas kadib markii 22 maxbuus lagu dilay rabshado ka dhacay xabsiyo dhowr ah. guillermo lasso ayaa sheegay inay ka go'an tahay sidii dib gacanta loogu soo celin lahaa xakamaynta falalka burcadda. ugu dambayntiina taageerayaasha madaxweynihii la dilay ee waddanka hayti jovenel moise ayaa ku mudaharaadaya magaalada uu ka soo jeedo ee cab haitian xilli la filayo in meydkiisa la aaso. waddooyinka ayaa lagu xiray taayaro la gubay iyadoo dabadbaxayaashu ay dalbanayaan cadaalad. warkii waa naga intaas aan dib idinkugu celiyo axmed iyo qaybaha kale idaacadda. mahadsanid cabdishakuur cabdulaahi casoowe oo wararka caalamkeena la socodsiinayey ayuu kaasi ahaa. waa hagaag dhegaystayaal aynu ku bilownaya. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa bedelay nambarka telefoonkiisa kadib markii la soo wariyey in uu ku jiro liiska dad la sheegay in lagu bartilmaameedsanayo barnaamij software ah oo israa'iil ay samaysay loona yaqaan Pegasus. shirkadda barnaamijka software-ka iska leh ee NSO ayaa xudun u noqotay fadeexad markaasi horraantii toddobaadkan soo ifbaxday oo ku aadan in barnaamijkaasi loo adeegsaday in lagu basaaso suxufiyiin, dad markaasi xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa iyo siyaasiyiin. hogaamiyaasha kale ee la sheegay in liiskaasi ay ku jiraan waxaa ka mid ah boqorka Morocco iyo ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan. ciise xaaji cabdille ayaa inoo faahfaahinaya warkaas.
madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa la sheegay inuu ka mid yahay dhowr hogaamiye oo caalamka oo la rumaysan yahay in telefoonadooda la bartilmaameedsado la isku dayo in la jabsado iyadoo la adeegsanayo barnaamijka wax lagu basaaso ee Pegasus sida ay ku waramayso warbaahinta caalamka. Wargeyska Le Monde ee ka soo baxa Faransiiska ayaa ku waramaya in sirdoonka Morocco ay ogaadeen telefoonka uu Mr Macron isticmaalayay tan iyo 2017. dowladda Morocco ayaa beenisay inay macmiil u ahayd ama ay ka mid tahay dadka adeegsada barnaamijka Pegasus. inaad ku jirtid liiska micnaheedu ma ahan in software-ka la adeegsaday, laakiin waxay ka dhigan tahay in qofku uu ahaa bartilmaameed suuragal ah. ma cadda ilaa iyo iminka in barnaamijkaasi weligiis lagu shubay telefoonka madaxweynaha Faransiiska. madaxtooyada Faransiiska waxay sheegtay in haddii wax la shaaciyay ay run yihiin ay tahay arrin aad u culus oo haatan ay baaritaan wado, arrintaasi oo surugi karto arrin diblomaasiyadeed. lambarada ku jira liiska sirta ayaa sidoo kale la sheegay inay ku jiraan kuwa madaxweynayaasha dalalka Ciraaq, madaxweynaha Koonfur Afrika iyo sidoo kale ra'iisul wasaarayaasha dalka Pakistan, Masar iyo boqorka dalka Morocco. in ka badan 600 oo saraakiil dowladeed iyo siyaasiyiin ka kala socdo 34 dal ayaa ku jira liiska dadka telefoonadooda la bartilmaameedsaday. shirkadda samaysay barnaamijkan wax lagu basaaso ee lagu jabsaday telefoonada dad aan waxba galabsanin ayaa sheegtay in eedayn dusha laga saaro ay la mid tahay dhaleecayn dusha laga saaray shirkadaha baabuurta sameeya markii qof sarqaansan uu shil galo. waxay shirkaddu sheegtay in barnaamijkeedan ay dowladaha badan ka iibisay uu yahay mid loogu talagalay in lagu dabagalo dambiilayaasha iyo kooxaha argagixisada. shirkadda NSO Group ayaa sheegtay in lagu wargeliyey in liiska laga jabsaday saafarkeeda ama qalabka ay ku shaqeeyaan ee yaalla dalka Qubrus. balse afayeen u hadlay shirkadda NSO ayaa BBC-da u sheegay in marka ugu horeyso qalab noocaasi ah uusan u yeelin dalka Qubrus. tan labaadna waxa uu sheegay in aysan haynin macluumaadka macaamiishooda. ciise aad ayuu mahadsan yahay. sidii hordhaca barnaamijkaba aad ku maqlayseen, booliiska dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa xiray 28 qof oo ay ku eedeeyeen in taageero ay u fidinayeen kooxda TPLF, iyagoo sidoo kale xanibay hantida xubnaha ay xireen, iyadoo goobo kala duwan oo dalkaasi ka mid ahna ay laamaha ammaanka ee dalka Itoobiya ay xabsiga u taxaabeen dad ka soo jeeda qowmiyadda Tigreega oo lala xiriirinayo in ay gacan saar la leeyihiin kooxda waqooyiga dalkaasi ka dagaalamaysa ee TPLF. wariye Ismaaciil Ibraahim Buurgaabo ayaa arrimahan xarigan ka waraystay taliyaha guud ee booliiska dowlad deegaanka Soomaalida Generaal Maxamed Cali Xasan. saadagsantii mawaayahan dambe waxaa jiray in waqooyiga dalka inuu dagaalo ka jiraan, taasoo nimankii TPLF ama yaane oo iyagu diidan runtii jiritaanka dalka Itoobiya inay burburiyaan rabaan. maalmahan dagaalo cusub lagula jiro, iyadoo hadda kor adogsoontihiinba in dagaal ay ciidamada waqooyiga jooga ay dagaal la galeen, isla markaana dagaal lagu qaaday oo meesha laga saaray. kadibna heshiiskii hordhaca markuu dhacay ay loo soo baneeyey, dowladdu soo baneysay, haddana weli ayna joojin dagaalkii oo doonayaan qowmiyadaha kale o dhan inay la dagaalamaan. ayaa runtii dagaalkaas TPLF ama wayaane juntaaga ay wadaan wuxuu ka dhan ka yahay dhammaan qowmiyadaha Itoobiya oo dhan, waayo waxay rabaan inay soo celiyaan dhibaatooyinkii shalay jiray 27 sano ay dalka ku soo hayeen, in iyaguna ay soo celiyaan bay rabaan oo ay dadka sidii u gumaystaan. saa annagoo ka duulaynaa waa isku dayn dagaalkaas muddada 9 bilood ku dhowaad socday, wax badan iyo khasaare badan baa ka dhacay. taa markaan eegno nimanka TPLF meel kasta way joogeen dalka waa ogsoontihiin, oo 27 sano waddanka haysteen, meel kasta way ku baaheen, dhaqaalay meel kasta ku samaysteen, hanti bay ku samaysteen, dad bay ku samaysteen meel kasta. saa laaldigeed waxaa la isla gartay dhammaan cidda xidhiidhka la leh hantida u diraysa, weliba gaaraan kuwa dagaalka ku jira hantidooda halkan uga shaqaynayso. ninka dagaalka ku jira ee dalka inuu burburiyo doonaya ee hantidiisina halkan taallo dee waa qasab, waayo hantidana ku dagaalamaya, rasaas buu siisanaya, wax kasta uu ku dagaal galo oo saanada ayaa looga diraya halkantiisa. saa laaldigaana waxaan qabanay 20 xubnood baan qabanay, gawaari badan oo qabanay iyaguna way jiraan, kuwa badan haddaan dabgal ku jiro iyaguna qaban doonaa jira. hantida noocaasa runtii waan diiwaangelinaa iminka. nimanka dagaalka ku jira, kuwa dagaalka ku jira weyn, kuwa annagu nabadgelyada ku jooga ee cidna beelin kuwaas kuma jiraan, laakiin kuwa dagaalka ku jira hantidooda waad ogtiin deegaankeenna 27 sane lasoo dhaafay hanti badan bay ku samaysteen, dhul badan bay boobeen, guryo badan bay ka dhisteen. waa la ogsoon yahay dadka hantideena ka dhaceenna deegaankoodana wax badan bay kaga dhisteen. misaalaaldigeed annagoo kale tahayn adhisaa wax badanba bilyanis baa laga soo xareeyey hantidoodii deegaanka Oromiya, Jabuub oo kale dhammaan deegaanada dhan baan taa kala simannahay. annaguna laaldigeena wixii nagala aadanaa gawaari 22 waan qabanay ilaa 22 sano taraag waanu qabanay, kuwa kaloona iminkana soo wadna way jiraan.
28 xubnood aan qabanay xooyin 12 xubnood iyagu dabaaldeg bay xafladaba dhigteenba oo toos kuwii lacaga diriyeen xooga tamaan helan iyaga kuwii dhaqaalaha wax badan diriyay bay hayeen 16 iyaguna baaritaanka baad ku jiraan iyagoo wax badan xog badan marayna waxna uu noo dhiman yahay laakiin kuwa hadda xukunkoodii baan taaganahay 12 iyada xukunkoodii u dhow yahay Commissioner Addis Ababa laga qabtay iyo taageere ahaayeen oo dabaaldegayeen kaliya haddii dadkan lagu xidhxiro ma waysan u muuqanaynin sida ay dadka u dooda xuquuqda Tigreega oo kale ay leeyihiin waa isirbeegsi taas oo kale soo looma qaadan karo in badan baa la isweydiiyey waxaa jooga deegaankeena intaas oo waxaa joogta qoomiyadaha hadda Tigreega way joogaan laakiin anaga waa TPLF weeyaan TPLF oo waliba kuwan hadda dagaalka ku jira kuwa dhaqaalaha u diray ee ka qayb qaatay dagaalka bas weeyaan anagu targetkana weeyaan laakiin kuwa lama oran karo ninka lacagta maanta u diray rasaasta dadka lagu leeyahay maanta lagu leeyahay ciyalka lagu leeyahay ee qoomiyada dalka lagu burburinayo dalka iyo federationka maanta dalkan iyo qoomiyadahan lagu dhibaateynayo ninka lacagta ku bixinay dhaqaalaha ku bixinay talaaban qaadayna dad aan Tigre ahayn may ku jiraan sida Soomaaliya oo kale dad aan daba socnaa way jiraan oo hadda xogtooda oranayno oo laftooda maalmaha saad isku intay ciidankeena markaan ciidanka liigu gaarka markaan u dirnay aynu qoyiga u dirnay buunbuunna ayaa jira shalay Soomaaliya ciidankeena liigu barskama galka laga maaldin maanta sababta looga hadlay markii qarannimada dalka la difaacayo maxaa jira halkaas dad badan oo buunbuun kuwa shalay aabahoodii hooyada ay dileen ayaa maanta saacbada u timayo oo moodaysa ma garanayo aragtida dadka inay xor u yihiin oo inaad ka hortageysaan ma noqon karto aragtida horta waa kala gaar weeyaan aragtida shalay si guud dadka waa la dhibaateeyay waad ogtahay adigu xoogaal baad ogtahay adigu dhibaato badan baa dadka loo soo geystay annaga cidna hal la dhibaatay ma leh laakiin ciddii dagaalka ku jirta iyo ciddii dagaalkan taageersan oo dhan sharcigu wuxuu noo xirinayaa nimanka horta waa argagixiso sharciga Itoobiya wuxuu ansixiyey sharci terrorism inay yihiin nimankaas waa la ansixiyey bayaan baan anagu haysanaa soo mogi den bayaankaas wuxuu xirinayaa waxa alla wixii lagu taageero dhaqaale ku taageero ficil ku taageero ku taageero dhan in sharciga talaabo laga qaado bayaankana xirinayaa kaasi waxa uu ahaa taliyaha guud ee booliiska dowlad deegaanka Soomaalida General Maxamed Cali Xasan oo u waramayay wariyahayaga Ismaaciil Ibraahim Buurgaabo dhegeystayaal halka nagala socotaan waa BBC dhegeystayaal qodobkaas aragtidooda waxaa ka soo dhiibtay dhegeystayaal ay kamid yihiin Faarax Bashiir oo jooga magaalada Garowe waxa uu yiri raggaasi lagu xirxiray dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee lagu soo eedeeyay inay gacan saar leeyihiin kooxda TPLF runtii waan bogaadinayaa sababtoo ah Soomaalidu waxa ay dhahdaan qori iyo qiiciisaba waa la isla tuuraa TPLF iyo inta taageersanba sidaas ayay ka yihiin Itoobiya Cabdiraxmaan Sulub Sheekh oo ka soo qoray Boosaaso waxa uu yiri waxaan u arkaa runtii booliiska dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee la sheegay in ay xirxireen dad laga shakiyay in ay gacan saar leeyihiin kooxda TPLF runtii waxba ma soo kordhinayso waayo buu yiri haddii deegaankaasi wax ka dhacaan waxaa mas'uuliyadda qaadaya madaxda dowlad deegaanka kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasheena oo dhanka Facebook aragtidooda nagula wadaagay halka aad nagala socotaana waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa hagaag dhegeystayaal qodobada inoo soo socdana waxaa ka mid ah gabar Soomaali ah oo soo bandhigtay madxaf hidaha iyo dhaqanka Soomaalida lagu kaydiyo oo qaab online ah lagu daabacan karo balse marka hore shir ay marti gelinayso dawladda dhexe ee dalka Canada loogana hadlayo sidii looga hortagi lahaa arrimaha muslim nacaybka ayaa ka furmay caasimada dalka Canada ee Ottawa wuxuu shirkaasi ku soo aadayaa iyadoo muslimiinta dalkaasi ay cadaadis ku saarayaan dawladda in wax laga qabto arrimaha muslim nacaybka ee sii siyaadaya haddaba warbixin ku saabsan shirkaas iyo waxa muslimiintu ay doonayaan in ay dawladda ka helaan waxa Canada ka soo diray Duraan Xasan Yare There is no place in Canada for Islamophobia. Waa ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau oo furay shir looga hadlayo sidii looga hortagi lahaa arrimaha muslim nacaybka oo ayadan dambe ku soo badanaya dalka Canada. Shirkan oo ka furmay caasimadda dalka Canada ee Ottawa ayaa waxa ka qayb galaya qaybaha kala duwan ee bulshada, qaar ka mid ah madaxda jaaliyadaha muslimiinta, culimada waxaana arrimaha shirkan wax ka weydiiyay warsame jirde oo asaga laftigiisu ka mid ah dadka lagu marti qaaday shirkan. Shirkan waxaa looga hadlayaa sidii looga hortagi lahaa ficilada islaam nacaybka ah oo aad moodo xilliga dambe inay aad ugu soo kordhayeen wadanka Canada. Marka dawladda Canada waxaa soo food saaray cadaadis aad u fara badan oo ka imaanaya bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan bulshada shacabka muslimiinta oo Canadianka ah oo leeyahay dawladda waa inay wax weyn ka qabataa arrintan sidii looga hortagi lahaa ficiladan oo islaam nacaybka ku salaysan oo loo yaqaan Islamophobia. Maalin dhaweyd baarlamaanka Canada wuxuu si aqlabiyad leh uu ku ansixiyay
tahay in aad loo cambaareeyo ficiladan oo islaam naciibka ah isla markaasina la sameeyo shir qaran oo lagu casuubo bulshada qaybaheeda kala duwan si markaas looga dhageysto dadka muslimiinta ah waxyaabaha ay tabanayaan sida ay jeclaan lahaayeen waxa ay dareemayaan marka waa talaab aad u wanaagsan in dowladda ay dhageysato mujtamaca muslimiinta ah qaybihiisa kala duwan isla markaasna xataa waxaa lagu casuumay shirka dad kale oo ah khubaro oo aad ugu xeeldheer sidii loo joojin lahaa ficiladan ku saabsan naciibka maxaad ka filaysaan gunta iyo gabagabada shirkan maxaase haddii aad tihiin muslimiinta aad doonaysaan inaad kala hadashaan dowladda wallahi waxaan filaynaa haddii aan nahay mujtamaca muslimiinta ah oo reer Canada in dowladda ay ficil dhab ah ay markaan qaado yani si aysan hawsha u noqonin qowda maqashay waxna ha u qaban annaga haddaan yani shacabka muslimiinta oo reer Canada waxaan rabnaa in la sameeyo database wax loo yaqaan oo ah meel lagu kaydiyo qof kasta oo lagu soo eedeeyo nooc kasta oo ka tirsan ficilka islaam naciibka ama hadal ha noqdo ama gacan ka hadal ha noqdo si markaas oo u noqdo dembi aad u weyn dembi culus waxaan kaloo u baahanahay in dhaqaale aad u fara badan bixiyo in shacabka guud oo Canada la baro diinta islaamka inaysan ahayn diin xumaan ku dhisan ay tahay diin jacayl iyo maxal dhaha naxariis ku dhisan inay tahay soo marka in dowladda dhaqaalana ku bixiso in sharciyo culusna laga soo saaro insha Allah waxaan rajaynaynaa in yani wax ku oola shirkan ka soo bixi doona duwaleedmo dhanka kale Dahaba Xuseen oo dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada kuna nool magaalada Toronto ee gobolka Ontario ayaa ii sheegtay in ka muslim ahaan iyo ka dumar ahaanba ay soo dhaweynayaan shirkan iyadoo sidoo kale ii sheegtay inay rajaynayso inay wax wanaagsan ka soo baxaan shirkan waxaan soo dhaweynayaa shirka maanta ka furmay wadanka Canada ee uu furay Prime Ministerka Canada Trudeau shirkaas oo ku saabsan nabadgelyada iyada familigeena caruurteena gaar ahaan dumarka muslimaadka ah ee xijaaban ee xijaabkooda cabsida kula nool waxaan rajaynayaa shirkaas inuu noqdo shir miro dhala ee Ilaahay idanka ay faa'iidooyin ka soo baxaan wax u tara muslimiinta waxaan rajaynayaa in shirka uu noqon mid shir inta la qabto la iska uu noqdo shir faa'iidooyin benefit badan laga helo laga hadlo nabadgelyada awlaadayada nabadgelyadooda dadka lagu martiqaaday shirkan waxaa ka mid ah imaanada masaajidyada waxaana Sheekh Maxamuud Sheekh Cabdiraxmaan oo imaanka masaajidka Al-Amaari ii sheegay in shirkan uu ku soo aaday waqtigiisii isagoo sidoo kale Soomaalida iyo muslimiinta aad ayuu u mahadsan yahay Duraan Xasan Yare ayadoo dhawaan lagu wado in degmooyin dhowr ah oo Puntland ka tirsan ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo lagu soo dooranayo golayaasha deegaanka ee degmooyinkaas ayaa guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland waxa uu markaasi xiriir iskaashi ah la sameeyay guddiga doorashooyinka Kenya gudoomiyaha guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Barre ayaa la kulmay guddiga doorashooyinka Kenya iyadoo markaasi labada dhinac ay ku heshiiyeen in Puntland laga kaalmeeyo tababarada shaqaalaha ku hawlan qabashada doorashooyinkan gudoomiye Guuleed Saalax Barre ayaa arrimahaas uga waramay Xasan Sheekh Cumar waxaan wada kulanay guddiga doorashooyinka Kenya oo gudoomiyahooda uu hogaaminayay waxaan ka wada hadalnay waa sidii aan uga faa'iideysan lahayn aqoonta iyo khibradda guddigan uu leeyahay oo muddo badan ay soo qabanayeen soona maamulayeen doorashooyin annaguna hadda aan rabno doorashadii u horeysay oo qof iyo cod inaan Puntland ka qabanno marka waxaan iska wareysanay sidii aan isku kaashan lahayn gaar ahaan sidii ay nooga caawin lahaayeen dhinacyada tababarada iyo aqoon iyo khibrad isweydaarsiga iyadana waan ku heshiinay waxaanu isla garanay in khubaro ay noo soo diraan annaguna sidoo kale aanu halkan kusoo booqan karno oo xafiisyadooda kala duwan iyo laamahooda kala duwan marka aan shaqaalaha iyagu ay u imaan karaan oo lagu tababari karayo waxyaabaha aad isleedahay kulankan waad ka faa'iideen maadaama Kenya ay tahay dal in muddo ah ku dhaqmayay hanaanka dimuqraadiyadda maxaa ka mid ah runtii institutionkan hadda halkan guddiga doorashada Kenya waa institutionada ugu waaweyn ee Afrika marka la yiraahdo xagga qabashada doorashooyinka khubaro badan oo maaragtay ay muddo badan ka soo shaqeynaya doorashooyinkan ay u joogaan annagana maadaama institutionka hadda aan joognaay marna uusan qaban doorashada oo uusan gaarin weli doorasho in la qabtaay wax badan ayaan ka faa'iidi karnaa hadda gudoomiyihii ka horeeyay guddiga hadda jooga kasii horeeyay wuxuu tababar ugu soo qabtay Addis Ababa shaqaalaha iyaga iyo xubno ka socda ururada siyaasadda iyo ururada bulshada rayidka ah marka waxaan rabnaa inaan sii ballaarino xiriirkan noo bilowday aanuna hadduu ilaahay idmo ku casunno khubaradoodu inay noogu yimaadaan Puntland oo marka ay tababaraan shaqaalaha iyaga waxay kaloona siiyeen oo haddaba ay maanta ila soo wadaageen buwaag badan oo tababar ah oo ay diyaariyeen khubaradooda ay diyaariyeen oo iyaga naftooda intaan sugayno ay noo imaanayaan aan shaqaalaha iyagu ay kasii faa'iideysan karaan oo marka ay sii isticmaali karaan inta ay noo imaanayaan marka iskaashigaasa hadduu ilaahay noo bilaabanayo waana muddo waxyaalaha ka shaqeeyana oo aan rabnay in institutionkan doorashooyinka Puntland uu noqdo mid isku
dhammaystiran aqoon ahaan una dhisma khibrad ahaan inuu ku bilaabo doorashadan maamulkeeda si fiican inuu qabto kadibna marka ilaahay idankiis doorashooyin kaloo soo socda ay qaban doonaan marka ay aad ugu sii diyaargaroobaan aqoon ahaan iyo khibrad ahaanba arrinta diiwaangelinta shacabka ee degmooyinka puntland hadda halkay maraysaa hadda waxaan diiwaan gelinay 3 degmo u horeysay codbixiyaashooda oo aan ku guulaysanay inaanu si dhammaystiran dadkii rabay inay isdiiwaan geliyaan muddadii loo qabtay ay isku diiwaan geliyaan aanu dhammaystirnay dhowaan ayaan kaararkii hadduu lahayd u qaybin doonaa doorashada 3 degmo oo usoo horeyso hadda la diiwaan geliyo codbixiyaashoodana aan qabanayna Oktoobar 25-keeda waa Qarno iyo Ayli Ufayn kadibna waxaan usii gudbaynaa inaan diiwaan gelino dhammaan codbixiyaasha ku nool degmooyinka kale ee Puntland oo dhan aan rajaynayo insha Allah doorashadeedu inaysan dhaafin sana soo socda bartamihiisa hadduu la yiraahdo waxaa jirta cabasho ka timid tirada aad diiwaan geliseen gaar ahaana degmada Ufayn marka maxaa ka qaldan habka fulinta diiwaangelinta walaal cabashadu ma ahayn diiwaangelinta codbixiyaasha aan soo sameynay cabashadu waxay ka jirtay tiro koob hordhac u ahaa markaan soo bandhigaynay diiwaangelinta tiro koobkaana waxaa mas-uul ka ah wasaaradda qorsheynta iyada ayaa laga soo xigtay marka cabashadu halkaasay ka jirtay kamaysan jirin xogta diiwaangelinta ee aan soo bandhignay kamaysan jirin taasna wasaaradda qorsheynta iyo cid walba oo markaa cabashada qabtay ayaa ka wada hadlayay annaguna waa sheegnay inaanan mas-uul ka ahayn tiro koob aan mas-uul ka nahay diiwaangelinta codbixiyaasha marka waana iska aragnay oqaasha iyo waxgaradka reer Ufayn iyo meelihii kaloo laga cawday waa u sheegnay inaan anagu mas-uul ka ahayn ay tahay wasaaradda qorsheynta cidda mas-uulka ah tiro koobka taasaa marka walaal ay cabashada ku saabsaneeda ma ahayn wax diiwaangelinta kuseeya kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga ku-meel gaarka ah ee Puntland Guuleed Saalax Barre oo u waramayay wariyahayaga Xasan Sheekh Cumar dhegeystayaasha qodobkaasi aragtidooda ka soo dhiibtay waxaa ka mid ah Cabdinaasir Maxamuud Ciire oo ku sugan magaalada Muqdisho waxa uu yiri waxba soo kordhin maayo guddiga doorashooyinka Puntland ee dhigooda Kenya la kaashanaya khibradda dhanka doorashooyinka waayo uu yiri dawladda Kenya iyo dawladaha dariska qaarkood ma rabaan horsocodka dawladnimada Soomaaliya waxayna ila tahay buu yiri inaan wax badan laga faa'iidi doonin iskaashiga dhex mara guddiyada doorashooyinka Puntland iyo kan Kenya Cabdiraxmaan Maxamed Haruun aragti taa ka duwan ayuu qabaa waxa uu yiri waxa ka soo qoray luqganaane waxa uu yiri maamul goboleedka Puntland ee la sheegay in dawladda Kenya ay la kaashanayaan tababarada khibrad isweydaarsiga guddiyada runtii waan bogaadinayaa waxayna ila tahay Puntland tallaabadani wax badan ayay ka caawin doontaa kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasheena oo dhanka Facebook-ga aragtidooda nagula wadaagayay halkaad nagala socotaana waa BBC dhegaysa BBC Somali mobilkaaga raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com waa hagaag Dr. Sacada Mire oo ah khabiir ku takhasusay cilmiga dhulka ayaa soo bandhigtay qaab online ah lagu booqan karo looguna talagalay in taariikhda iyo hidaha Soomaalida lagu kaydiyo isla markaana lagu booqan karo qaab online ah wariyahayaga Cabdiraxmaan Bidhaan Xaaji Daahir ayay Sacada Mire uga warantay bal madxafkan iyo waxa uu yahay museumkan online-ka ah haddaan kaaga sheekeeyo waxa weeye howlaan wadnay iminka muddo 3 sano ah museumku waxa weeyaan howl aan ugu talagalnay in dadka Soomaalida meel kastay joogaan ay wax ka bartaan dhaqanka iyo taariikhda iyo aasaarta arrimaha khuseeya iyo alaab iyo weelal iyo goobo iyo wax luqadeed iyo dhaqamo wixii Soomaalidu ay lahayd ee loo yaqaano hidihii dhaqankii saameeya nolosheena ee ku xiran wixii hore ee qadiimiga ahaa iyo waxa maanta joogaba marka museumkani waxa weeyaan mid ah waxa la yiraahdo multimedia oo ku jirayaan imika ku jiraan sawiro muuqaalo filmo ah documentary ah iyo kutusaya maxaa la yiraahdaayay goobihii qadiimiga ahaa ee deegaanka Soomaalida oo dhan waxaanu la shaqaynaa information ka ururinay wadamo fara badan ay Soomaalidu degaan laakiinse markaad eegto online weeyaan baad tirahdeen imika madxafkii ama museumkii dadka Soomaalida intooda badan ma haystaan internet goobaha magaalooyinka waaweyn ee internet kalena goobo internetkooda aada u sarreeya maaha oo laga daawan karayo culayskaas dee museum dhan laga daawan karayo
marka ma la odhan karaya museumkiinu inta badan wuxuu awoodda saaraya ama soomaalida qurbaha ku nool wixii laga gaadho ama dadka kale caalamka taasi waa important point laakiin waxaan ku sheegayaa waxaanu leenahay gallery ku yaala somaliland ku yaala hargeysa oo aanu ku talagalnay waxa weeye physical waxa weeye madxaf center oo ah digital oo aanu dhignay smart tv aanu invite garayno arday jaamacadeed bulshada si ay halkaa u tagaan waayo waanu ognay baahida dadka haysata badanaa dhalinyarada ee aan online haysan computer ama lahayn connection marka sidaa darteed baabaanu u dhisnay in ay halkaa ka daawan karaan halkaa aanu isugu wada keenno wixii deegaankaa jooga sababta aanu ula shaqaynayno oo aanu partnership ula galnay maxaa la yidhahdaa deegaanka soomaalida ee kenya ethiopia somaliland soomaaliya iyo djibouti waxa weeyaan institute aanu rabno in aanu ku caawino digital maxaa la yidhahdaa material si ay halkaa dadka aan haysan computero ama access ay ugu yimaadaan oo directly halkaa uga daawadaan markaad eegto doctor sacdiya iminka adigu muddaad arrimahan kusoo jirtay ka shaqaynaysay dadka soomaalida ah maxay ka aaminsan yihiin aasaartii hore waad ogtay waxaa soo baxay ururo diimeed waxaa soo baxay dhaqanka soomaalidu imika uu isbedelaya sidii hore maaha awal way jiri jireen waxyaabahan dhaqanka wali qarniya soo jireen laakiin imika dadku fikrado kala duwan bay ka haystaan dadka soomaalidu maxay ka haystaan taariikhdan hore ayaad u malaynaysaa mase ku dadaasheen inaad ka wacyigelisaan muhiimadda ay leedahay taarikhdan hore muhiimadda dadkan badankoodu waxay fahamsan yihiin in aasaarta dee ay ka mid tahay waxyaabo qadiimiyo dad hore ka tegeen laakiin intan dambe 15 sane dambe ee aanu hawshan wadnay anigu aan waday dibaddana aan ka waday regionkana aan ka waday waxaan ka bilaabay kenya waxaan ku xijiyey ethiopia intii dambena waxaan ka shaqaynayay somaliland iyo soomaaliya marka xidhiidhadii 15 sano dadkii waxay fahmeen aasaarta inaanay aasaarun ahayn ee ay yihiin wax dunida isku dhaaftay masar bay og yihiin siday u keento dalxiis marka xagga diintana dadkeenu isbedelo waaweyn baa socda imikaba waxaa la fahamsan yahay in dee diinta islaamkuba ay ka hadlayso taariikhdii hore suurado dhan ayaa ka hadlaya arrimaha oo loo baahan yahay aqoon in la fahmo xitaa diinta islaamka dadkeenu xitaa diinta islaamka sidaa umay sii baran imikunba ay dadku sii fahfahmayaan carabigina barteen marka hawsheedu waa hawl ka mid ah howlaha developmentka aqoontii dadkeena ay kordhayso bulsho ahaan dhinac walba taasi waxay ahayd dr saada mire oo ah khabiir ku takhasustay cilmiga dhulka oo u warramaysay wariyahayaga cabdiraxmaan bidhaan xaaji daahir ciyaarihii haddii aynu eegno goordhow waxaa la filayaa inay bilaabato xafladda furitaanka ciyaaraha olombikada adduunka ee ka dhacaysa dalka jabaan inkastoo hal sano dib loo dhigay cudurka covid-19 awgiis waxay ciyaarahani bilaabanayaan iyadoo weli cudurka uu si xawliya markaasi ugu dhex faafaya jabaan magaalada tokiyo oo martigelinaysa tartanka ayaa xitaa ku jirta xaalad degdeg ah dhanka kale haddii aynu eegno kooxda manchester city ayaa isu diyaarinaysaa inay 4 ciyaartooydeeda ka mid ah oo muhiim u ah mid iska fasaxdo si ay u hesho weeraryahanka kooxda Tottenham ee lagu magacaabo Harry Kane. City ayaa heshiiskan markaasi Kane ku waayi doonta mid ka mid ah laacibiinteeda kale ah Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, Bernardo Silva ama Raheem Sterling. barnaamijkii subaxnimo uu soo saaray ciise xaaji cabdille anigoo axmed mursal xuseen aa idinla socodsiinayay dhanka farsamadana uu inoo joogay jonathan mwangi waa naga intaas tan iyo kulantideena labada duhurnimo nabadgelyo
There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. BBC. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com.